back from the dead. baan doonayay inaan cod soo dirsano madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo aan uga codsanayno Cabdimaalik Muuse Coldoon oo sanad iyo maalmo ku xiran magaalada Hargeysa waxaanu ka codsanaynaa samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon in uu bisha Ramadaan imka nagu soo foodahay labada cisho ama saddex cisho naga xigto inuu caafis madaxweyne uu ku sii daayo insha Allah bidnillaahi kariim iyo dhamaan cidii waxaanu waliba baaq u direynaa cidii wax ka geysan karta inay soo daayaan aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum magacayga waa Ubax Maxamuud Diiriye ka soo hadlaysa Jarmalka gobolka Heesin magaalada Friedberg haddaan nahay dhalinyarada Friedberg waxaa maanta halkaan cod uga gudbinaynaa madaxweynaha sharafta badan Muuse Biixi Cabdi waxaan ka codsanaynaa madaxweyne inaa samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon xorriyadiisa siisid maqaldamo waa ilaah qof aan qaldamin ma jiro waxaan si xushmad la madaxweyne kaaga codsanaynaa anagoo dhalinyarada soo kacaysa inaa samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon ciyaalkiisa waa aabe u soo sideysid. Assalaamu calaykum maanta waxaanu halkan aanu iskugu nimid dhalinyaradeedaasi codsigaas oo aan u dirayno madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi mudane madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa oo kaaga fadhinaa inaad sii deyso samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ah nin samafala ah bisha barakeysan Ramadaan awgeed maanta ma oranayna khalad buu galay iyo khalad muu galin anagu maanta ma lihin marka waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne inaad sii deyso maadaama aanu nahay dhalinyaradii reer Somaliland codsigayga inaad naga aqbashaan rajeynayna hadii Allahu ka dhigo waan salaamayaa dhammaan shacabweynaha reer Somaliland meel kasta ay joogaan Ilaahay Ramadaan ayna gaarsiiyo khayr iyo bash iyo barwaaqana hay nagu gaarsiiyo aad baan u salaamayaa maxaan ku leeyahay Jamhuuriyadda reer Somaliland iyo madaxweynaha iyaga Muuse Biixi Cabdi anigoo ah Jaamac Qushe Cabdi Cawaale oo waliba gaar ahaaneed Haysan anigoo ka soo hadlaya waxaan ka hadlayaa maanta baaqan diraya wuxuu yahay Muuse Coldoon oo maxaan ku raadayay samafala maxaan ku raadayay Somaliland ah oo muwaadina inuu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi noo sii daayo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi sharafta laba magacaygu waa Saadam waxaan ku noolahay wadanka Germany gaar ahaan gobolka Haysan gaar ahaan magaalada Friedberg waxaan codsi u dirayaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan ka codsanayaa inuu soo daayo Cabdimaalik Muuse Coldoon muwaadin Somaliland ah waliba samafala aad iyo aad baan idin salaamayaa walaaladay xulasha media shaqada aad u haysan ummadda Soomaaliyeedna waan idinku habliyanayaa hor u socdaan leeyahay inta kadib hadii aad wax iga weydiiso Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo aad iyo aad loogu bartay ahsaanta iyo inuu dadka jilicsan wax u taro waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland inuu ninkaas miskiinka ah ee ummad badan oo Soomaaliyeed wax u qabtay kana shaqeyn jiray waxaan ku raadayay caawimada inuu soo daayo oo bisha Ramadaan ee barakeysan barakadeeda waxaan ka rajeynayaa in uu ku soomo banaanka iyo helkiisii dadkiisii uu la soomo iyo dadkii uu caawin jiray insha Allah dib ugu soo laabto aad iyo aad baan markaa u rajeynayaa khayr iyo baraka idin rajeynayaa inuu ninkaasina soo baxo ayaan Ilaahay ka rajeynayaa bisha Ramadaan insha Allah bismillahir rahmanir rahim waan soo dhaweynayaa maadaama wax wanaagsan aan wadaan oo dhalinyarada u baahan tahay wax walba dadka waa gelin loo sheego sababtoo Cabdimaalik Muuse Coldoon waa ogtiin muddo sanad oo kale uu xiran yahay hadda wax macquul ah wax yar oo qalad inuu ku hadli laakiin la cafi karo madaxweynaha Muuse Biixi dad badan oo cafiyay uu ku dari karay Muuse Coldoon inuu fasaxo oo cafis u fidiyo uu ku dari karay kulli ma qana sababta uu haysto I don't know mashii karmidaas laakiin waxaan ka codsanaynaa aad iyo aad madaxweynaha Muuse Biixi aan ka codsanaynaa ninkaas oo walaalkeena oo dad Soomaaliyeed oo ummadda masaakiinta u gargaar jiray maanta kala sanadkan oo kale afur dadka walaalaha masaakiinta oo kale oo afur jiray dadka masaakiinta wuxuu ururi jiray maanta kale dad badan oo wax laga yaabaa oo walaalo masaakiin inuu maanta caawiyo waxa ka rajeynaa inuu si uu dhaqso badan degdeg inuu ku soo deeyo ninkaas walaalkeena aad iyo aad ka codsanaynaa midaas noo sameeyo okay waa mahadsantahay